qofka aan waraaqdiyo qaylada u diraya qalbigiisu adaga daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijyadeeni aynu inii soo deyn jirnay anagoo mar walba qeybeyna shacabka maanta waxaa garabkayga fadhida Nimco Maxamuud Cali waa mid kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Laascaanood iyadoo ka sheekeyn doonta waayaheedii jacaylka miya iyo waayaheedii nololeed mar walba waxaan ictiraanaa ama tixgelinaa rabitaankiina iyo shakhsigaad xiisaynaysaan Nimco ku soo dhaw barnaamijka xamdi qaran walaal waan dhawahay adigii barnaamijkaagaba Nimco de galabta halkan waxaan isla horfadhineena barnaamijyada jacaylka gorfayno Soomaalida way ku yar tahay in barnaamijyada jacaylka laga hadlo walow aad moodid sanadadan inay soo yara badanayaan magaalada Laascaanood baynu joognaa jacayl loogama baran qof intuu meel soo istaago jacaylka muu sheekayn de galabta adigii bay horfadhiyeen bal waxaad noo soo koobtaa horta inteere ugu yara xiisaha leh aan murugta dheerna ku jirin كل حمدي الدنيا اللي تشوفها هرت دبعتي اللي هذا هاي يقهر كذا هرا بلوير إنك نولا محارة كلها عبا ده كله يتعايل إلا هذا كسون كستقل بجيب كم برنامج صبح يوم تعايل جوني على الصفحة ده هذا تعايل ده كله حمهم بدناية وانا كلا حمد بدناية مدة تعايل كيران في daawadayaal hadii Nimco hadaladeeda dadka qayb kamid ah qalbiyadooda taabtaan waxaan leenahay naga raali ahaada Nimco waxa laga yaabaa barnaamijkeeda xataa inuu soo galo ama hadalkeeda qiirooyin maadaama ay tahay dhibana jacayl Nimco inoo sii wad barnaamijkeena xamdi walaalo kulli jacaylku duwanaa jacaylkii soo maray isma oran karo bil aadan kula mid ah jacayl noocaas soo maray sabi baan ahayna yara run ahaantii de gurigooda iyo reerkooda iyo ehladooda u yar xiliyada ka duwan ana dugsi u sii socda oo aan saxaab la socdo ay gaab tahay oo break jiro ayaan inankood doon hore inanku wiiga weynaan weyn buu ahaa horaan oo arkay baan inan la socotaan ku wariye walaalo meherad baan ka soo yar noqonayaa u firsan jiray kadibna hayay tiri show iskoolkii intaan ka maqnaa waxa aan dhaafay dhowr xiisadood kadibna waxa dhacay inankii waan soo eegay marka dareen baa soo hayay laakiin jacayl ma haynin iskoolkan ka soo noqday haddana meheradayda oo aan hadle ayuu fadhiyay isagoo fadhiyo buu islaamay nicaayada jacaylka bartaas iga soo gashay kadib waxaan gaabsi galay waxbarashadii way maadaama uu jacayl soo galay waxa ay gaabsanaya hawlahaygii kale familkoodii ku dhahaan waxbarashadii maxaa kaaga dhacay maxaad waxbarashadii waad weyday baan dhahaa bal horta inoo yara hakiya waxbarashada wax ka weyn baa meeshii kadibna meherada anigu aan ka shaqeyn jirin waxa dhacay inaan shaqadeedii imaado anigu habligii shaqeyn jiray dhaho waan ka shaqeynayaa oo waan qabanayaa aan dee la shaqeeyo san inaan ka aragtiisa kaliya ugu daawado telefoon baa jiray heer baa jiray marka la taagan yahay telefoonkan qaatay waan wici jiray xilli baa jiray waqti aan waco inta soo saac aroortii aan wicin duhurkii aan wicin casarkii aan wicin xilliga maghribku baxayo cishana inoo sugulayo ban caadayan ii ahayd jacaylku sii batay anigu awoodan dee waan u sheegtay isaga kaftan bay lahayd waxa dhacay kaftan ay la noqotay xanuunkii baa sii batay waxaan ka carari jiray meesha isaga lagu aflagaadeeniyo waxaan jeclaan jiray ruuxa wanaaga iga sheegay isaga inuu ii sheekeeyo waliba aanan sheekada ruuxaas dee maalin walba ma oran karo war hebel ka sheekeey hadal baan ugu soo dhex qarin jiray suwaniga wanaagiisa inuu iga sheekeeyo markaas uu dhaw ma hebela oo saas weey xilli maqribkay tahay adigu waan orday meheradu imaan jiray waan aadi jiray markuu tagaan meedan ka soo teegi jiray xanuunkii waa sii batay sikaraadkii waa sii batay
dee kolley noloshaanaa galay dhimashada ay dhaantay kadib waxaa dhacay hablo waxay ku dhahan saxabtahay noocna ma tiida mad iska badaysid xumadan ku haysa waa la adkaysaa de maxaan calool adkaystaa baan jacaylkayga ugu horeey guul haddaan ka gaadhana nasiib haddaan ku guulaysan waayana nasiib nimcoy haddaan kaa dhex galo markii aad u sheegatay yacni ma waxaa la odhan karaa kaftan bay ka ahayd mise isaga kubadiisa dee run bay ka ahaydoo wuu kuula soo dhici waayay xamdiya walaalo horta masuma ogid bila aadanka hadba ruuxba jacaylku ku horeeya de jacaylku maadaama aniga iguba horeeyay isagu macnay de inuu igu dhaxa waan ku jecelahay xabiibi kelmadaha igu booya dhagay mooye dee qalbigiisa markaan gudihiisa galay jacayl waan ka waayay aan dewsi waayo way noqon weyday ana macnihii qof daan rabo oon doonayo ahaa laakiin waan hari waayey waan ka qanci waayey weliba maalo qorana kuu soo rujuucaan islahaa marar badan ma u sheegtay de inaad si dhab u jecesho waxaa laga yaabaa qofka maraad dusha ka jeclaato iyo maraad intaad hortagto aad tiraahdid waan ku jeclahay xamdiya haa walaal waan la tegay de kale dareenkan jacaylkan qabo waan la tegay hortiisaan istaagay waxaan ku niyo desaasaa jirtee ma waxdi la qaban hayoon buu igu yidhi kelmadaa waan ku seexday hayo waan iska soo tegay laakiin kastoo adduunyo tahay qabyo tahay dhammaysahayn waxaa jiray inan aan naaftinahay oo joogtay meherada waxay ugu oran jirtay oo hebel baa halkaas soo maray hebel baa saasa xitaa laamiga aanan berigaaba mari jirin baan jeclaan jiray markuu maraysaan aragtiisa ugu dogsado inaad laamiga martay haa kadibna bulshadu waxay dhahdaa ama asxaabtan raaco oo hebel baa halkaa maraya anoo ka didaya ruuxa igu diraya ku socdo ruuxa igu gunaaninaya inaan gaadho ku guulaysto inkastoo dee qadarta qadarku isku hayaba qoraynba jacayl badan baad soo martay iyo dhibaatooyin badan iyo rafaad nimcoy waqtigaas intee leeg baad jacaylkaa la jiiftay ama aada la soo dhibaatoonaysay ise markii dambe ma noqday ruux isagana jacaylkii ku dhaco mise waxaa la odhan karaa dee adigoon baa la daalaa dhacaynay subaxdan ka hadhay mise wax kamaan hadhin galabtan ka calool go-ay ayuu igu yidhi miyaad calool godaysaan ku ihi haa waayo dee ruux bilaaadana maba sii socon karno markii aad ku tiri waan kaa calool go-ay ama waan kaa hadhay maxaad ka dareentay wejigiisa ama hadalkiisa mise waxaa la odhan karaa isaga jacaylba muusan haynin xamdi walaal isaga jacayl muu hayn dee wax qalbiga waxa doonayso aniga ma ahayn isaga wax jacayla muu haynin waayo dee horta hadduu qofku kaa weyn yahay jacaylkiis wax kuuma tareeyo soomaalidu waxay tiraahdaa jeclaado hore ugama hadho sidee baad is leedahay jacaylkii baad ku ilowday maadaama daadinan yar ahayd nolol badan iyo duruufo badan aad soo martay xataa waxbarashadaadii ood kale aad ii sheegtay aad ka hadhay sidee baad ku ilowday marka horta soo ma ogid waxaa ugu muhiimsan meel waxaa ila garab galay inaan ka hadho ka qanco walaashay xaliimo xasan hagar oo iga weyn bay ugu dhiirigelin jirtay oo odhan jirtay waxaa ka hadh soo ma ogid qof yar dariiqasan baa la tusaa waxay igu waanin jirtay inay igu tiraahdo waxaas kadaa waxaan saadhe waxaan qofkan saa ka hadh iyadaa igu dhiirigelisay inaan ka calool go-o markay aragtay dee inuu wanaagiisoo sidin abaal baan uga haya haddii qof bilaadan abaal loo qaadayo nimcoy waqtiyo badan baad soo martay jacaylku sidiisaba waxaad u dhib badan waxyaabihii kuula qiirada badnaa oo aad qiirooto markaad ilaa hadda soo xasuusato muddadii aad inaan kaa jeclay maxay ahaayeen wallaahi walaal way badan yihiin waxay ahayd markuu hadal xun idhaho oo kale markuu hadal san idhaho oo kale markuu hadal xun idhaho oo kale markuu hadal san idhaho oo wanaagsan kun waxa uu idhahana waxaan ka jeclaan jiray ama aan ku ilaawi jiray kelmad kaliya oo idhaho baan ku ilaawi jiray wanaagsan waxaa jirtay waqtiyada qaar moogtahay subaxdii ilaahay soo gaayaba waji cusub markaan waayo ama diiqadoodo inaan meesha joogo u tago bay ahayd kadibna dhowr jeer baanu sheegtay aflagaadaa timaada caybaa timaada haddana ruux dee qalbiga ka bukaanaho ma hadhayo bal inuu sidii hore iska soo bedelo inuu de macnii wadadaydu mari jiray teemka wadadeedu marayaan eegan jiray gaadhigu wadan jiray teemka gaadhigaa wado baan eegan jiray
xitaa jiifskaan jiifsanayo riyaygu imaan jiray annagu nolol macaan joognaa marka walaal jacaylku walahi wuu iska xanuun badan yahay jacaylku wuu dhibaato badan yahay daawadayaal barnaamijkeennii baynu weli bartamaha kaga jirnaa nimco waxay kasoo sheekaysay waxyaabo aada u xanuun badan waxaad moodaa dhallinyaradeenu inaysan ku baraarugsanayn jacaylka iyo dhibaataduu leeyahay nimcoy haddaynu barnaamijkii dib ugu noqono waxaad tiri isagoo hadalla xun ile baan haddana dee jacayl usii qaaday waqtiyadaad wacdo oo kale ama aada weydo wixii keliya aad isku madadaalin jirtay waxaan nafta ku maaweelin jiray kelmadii sana uu shalay oo kale yiri baan qalbigayga ku dhayin jiray niyadda laakiin waxaan gelin jiray inuu marwalba imaanayo xasuuso u lahaa ayaan hadba xasuusan jiray oo dasaasuuba ku yiri maxaad kaga tagin baan soo jiray hees cawaalaaba waxay tiraahdaa eed waxaad fashana ubadkeen dhalaasana xoon jiray eed waxaad fashaa jacaylkeena gubka baan ku ilaawaya ayaha dambiye rajaneegaya wata dhaasaysto wana ilaaway ayaha dambiye rajaneegaya eed waxaad fashana jacaylkeena gubka baan xabiibi ku ilaawaya waxay ka ahayd asaaska jacaylkayga ahayd ay heestaasi ah nimcoy horta dhibanayaal badan baa jiro jacayl daala dhacaynay gobolkii soo baynu joognaa maanta waxaan oran karnaa waa qofkii ugu horeeyay intuu shaashad soo fadhiisto ku dhiiraday inuu jacaylkiisa iyo waayihiisa nololeed ka sheekeeyo waxaa tiri markuu wax igu sameeyo ama dee taleefaniga qaban waayo heestaasaan isku madadaalin jiray sidee baa u dhici kartaa inaad qofka jacaylka intaa lagaad u haysi aada u ilowdo soo ma ogid xamdiye walaalo caqligaaga waad xukumi kartaa waad xakameyn kartaa laakiin waxaadan xakameyn karin bini'aadamku kale waxay dhahaan caqliga iyo qalbiga labadaba waan xukumi karnaa balse qalbiga waxaan xukumi karin weeye isagu isxukuma meeshuu rabo isgeyn karaa laakiin maskaxdaada ama caqligaaga ama reegaaga waxaad adigu aad xukuman karto oo aad leedahay laakiin qalbiga ma xukumi kartid waayo qalbigu horta jacayl waxaa yaqaan qof soo arkay aniga waxaa jira kuwa iga sii xanuun badan kuwa ilaa adaankaas rajo ka qabo jacaylka markaan arkay xanuunku iyo dhibaatadu leeyahay anigu horta jacayl waan iska farxan ka qaaday mala jecli in xanuunkii isoo maray mar labaad intuu igu soo noqdo walaal boogtii xanuunisa igu sii darsamo markaba xamdi walaalo xilli galaba oo ay cadceedu sii gudka sii yara galayso laakiin ay taagan tahay baan waan soo yara kacay kicitaankaan soo kacay inkastoo qalbi oomanaanahay dareen qabaanahay waxaan sir ballambarkiisii oo kaliya waco saad ugu nafisto waan wacay walaalo kadibna maxaan kala kulmay lambarkiisii oo layga qaban waayay xumad aan aad fara badan baa iga baxday waliba mar walba ku ducaysan jiray inuu lahay ila kulmiyo sooga qabtay haddana galabtaasi wuu iga qaban waayay waan oodlay maya xaafid maanaadin wadadu mari jiray baan istaagay oo xilligu soo bixi jiray bay ku beegnayd kadibna muu soo marin inaan wadada igu taqaanay baan ku ri inankii meeyay kadibna waxay igu tuulaalo casirkii dheeraa wadadaas sii maray dadku bariga hore xoran jiray raadka la raac wadanka hadda waqtigan joognaa samankii bay isbedelay raad miyaa raaci karaya waa maya kadibna waxaan orday bal inuu wadadii haddana kusoo noqdo waan rajeeyey waxaan kusoo noqday gogoshii aan dhowr saac ka hor aan ka kacay waxaan heeso badan baan dhegaystaa waa heesaheenni hore ka mid yihiin waxaan dhegaysan jiray cumar dhuuli cali qofka aan waraaqdiyo qaylada u dirayaa qalbigiisu adaga qarni hore jacayl tegay layliyo cilmi badilay laylana qabriga dhigay heesaasaa ka mid ahaa tani waan qisayayaa fanaankii inuu hortaagan yahay ma noqon karo fanaan taasi waa ka mid ahaa khadra daahir cige sahraha ka mid ahayd wallaahi way badnaayeen sootar raxmaa ka mid ahayd lama koobi karayo kadib dermad baan kusoo noqday inaan walaashay igu tiri umiyad soo weyday kadibna haa baan ku odhi kadib waxay igu tiri inoo problem maskaxdaada problem ha ku furin walow mar walba layga waanin jiray inaan xitaa aan iska jaro familigayga walaaladay ehelkayga wax kasta igu waanin jireen inaan cindigayga ka saaro hooyaday mar walba waxay ilaahay iga bari jirtay inaan qalbigaygu
uu sidiisii hore kusoo noqdo horta qalbi jabi xanuunkiisu leeyahay ama murugadiisu leeyahay walaalo adduunyaan u arkayay waxaan inay tahay galab walba waxaan soo kacay galbihii dambe xilli gaaba oo casara kadibna maqrib bay ahayd inaan walaashaya waanu naaftinahay baa ii timi kadinka ayaan kaga horteegay waxay tii nimcay waxbaan kuu sheegayay haddaan kuu sheego miyaad qiiroonaysaa kadibna waxaan ku yidhi haddii xanuun leeyihiin qalbigayga walaal awal buu jabnaa baan ku yidhi kadibna waxay igu tidhi xanuun bay walaal wataan kuwani aan kuu sheegayo markaasaan ku yidhi qalbigayga awalba wuu nugulaa dhibtaa okay bay tidhi way fadhiisatay waan wada fadhiisanay inaan yaro walaashaya shaah noo keentay annagoo iska waxaa jirta hadda dhalinyaro badan oo jacaylka aan fahansanayno waan ku jeclahay waxaa iska idhaahda iyo kuwo uu jacaylku dhabka yahay maxaad dhalinyarada kula talin lahayd horta jacaylka ciyaarta laga daayaan leeyahay jacayl ciyaar ma galo ruunba galayno dee jacayl adna waa lagugu dhalay adna waad arkaysaa dee suu ciyaaru galaa waan arkay dhalinyaro badan oo lagu ku jeclahay kelmadihii jacaylka ka dhigaya been abuur hadda nimcay haddii inaan ku yimaado uu ku yidhaahdo nimcay waa ku jecelaha maxaad ku garanaysaa inankan inuu dee jacaylku dhabka yahay inuu dee yacni uusan ka ahayn yacni maadaamad waaye arag jacayl soo noqotay walaalo horta qalbi oomani iyo qalbaan oomanen isku mid ma aha qalbigu mar hadduu jabo horta murugadiisuu leeyahay xanuunkiisuu leeyahay niyadaad arkaysaa oo wax quraalad dhalaa dhaladaas weliba dee haddii aan la dhowrini way jabtaa waad aragtay kadib qalbigu mar labaad inuu jacayl iyo nolol dambe sameeyo iskuma karayo dee oo waayo xanuunku lahaa wuu soo dhammaystay inkastoo ay xanuun lahayd murugada isoo martay haddana ilaahay baa dee mahad iskale qalbigayga walaal ka meydhay horta daawadayaal waxaan mar labaad iyo mar koowaad bay naga raaligelinaynaa nimco markay ka sheekaynayso dhibaatooyinku soo maray waxay dareemaysaa waxyaabo xanuun badan oo dee soo maray marka waxaa laga yaabaa dad badan oo sariirta jacayl la jiifaa inay markay nimco arkaan ay is odhanayaan idinkuna bal bulshada u bandhiga waayihiini iyo dhibaatadiini soo martay nimco way yara qiirootay barnaamijka waxaan u bedelaynaa dhanka iyo farxadda maadaama aynu maanta dhan dee nimco ay qiiroonaysay oon aniguna dee cabaar baan qiirooda hadeer ilmayo waxbaaba iga timiba nimcoy horta mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaaga mahadcelinaa sida kalsoonida leh oo aad barnaamijkan nagala qayb qaadatay waxay ahayd baan u malaynayaa 5 bilood ka hor markiinu barnaamijkan hindisnay inaynu qabanno saan u malaynayo sanadkii hore bishii 11aad bay ahayd malaynayaa galabta ilaahay inoo suurtageliyay iyadoo ay dalabkaas ku nagaga yimi dhanka dhalinyaradii iyagoo inaga dalbaday inaan barnaamijyada u sii wadno taxanana uga dhigno laakiin adigu waxaad noqotay qofkii ugu horeeyay nasiib u yeesho oo dee gobolka soo dhanka jacaylka ka sheekeeya nimcay hadda wax jacayl ma leedahay maya jacaylka wad ka tanaasushay maya ka tanaasulay nimcay haddii aad istiraahdid nolol samayso dee inaan yaro aad qurux badan baa tahay aad istiraahdid dee mar labaad rogaal celi ninkaad guursanaysid maxaad ku dooran lahayd maadaama dee jacaylkiiba uu burbureen aragnay dee horta taasaan ku dooran lahaa walaal taas hadda la isku dhaafay haa يعني وقتي جعلك سودما ها وقتي جعلك سودما رومانتيك سودما فرحتي سودماتay هذا ودنك لعب هذا ودنك لعبتا معمد انا معي واحد sheegtay inaad lacag dooranaysid maadaama uu jacaylkii hore isbaacsaday oo dhibaato badan soo martay maxaa la oran karaa maadaama qof aqoon dheeraada u leh jacaylka tahay inaad lacag atleed ban ku dooranaya waxaan ku doortay walaal lacagta in qalbiga jabay mar labaad yiri xagga balcayto u leh qalbigii baa ku wada ha qalbigii baa wada hadeer nimco waxa laga yaabaa dad badan inay fiidiyowgaaga daawadaan waxa jira dad badan oo jacayl la jiifo oo la meel ay ku soo gudbiyaan ama cid ay si toos ah ay uga soo xiriiraan markay adiga ku daawadaan oo jacaylkii dhibaatadiisa ka soo sheekaysay oo haddana aad lacag ku celisay yani miisan dadkaasi is oran karaynin jacaylkuba waa been walaal jacaylku dee wax runana way jiraan wax beenina way jiraan kulay dee
anigu jacayl intaan ka arkay ka sheegay dad iga sii liitaa jira oo dee ilaa adaanka isla tur xagaad ku sheegtaa xanuunka xagaad kaga baarkisataa inkastoo ilaahay qalbiyada bilaadanku sineynba oo mid baa ku dhahay weliga inta cimrigeeba ma arag jacayl wax la yiraahdo oo dad maxaa dadka kula sheekaysata dan jacayl baan arag adan qofkan xabiib iyo xayaat u leedahay iyo qof xanuunkii uu nugul anigu waxaan soo oran karayaa xanuunka waa nugulay xanuunka jacayl ayaad nugushahay nimcoy dhalinyaro badan ayaa talo iyo tusaale u baahan in laga siiyo jacaylka waxaa dhici karta qofka bini'aadanka inuu qalbiga ka xado mar waxaa dhici karta adiga laftirkaaga in qof jecel yahay aadan ogeyn dadka maxaa kula talin lahayd dadka jecel nimcoy waxaa jira dad badan oo dee jacaylka siyaabo fudud uu ku soo galo waxaad arkaysaa hablayeena ma ku imaanay dhahay hebel baan jecelahay hebel ayaa jecel yacni jacaylkaasina marka si loo eego dee haddana waxaad arkaysaa iyagii oo kala booday dadka jacaylka beenta ka sheega maxaad kula talin lahayd de hadda waxaad moodaa jacaylkuuna xiisa galay jacaylba jirin jacaylku waa xiisa tiradan baa lagu buuxinayaa inta jacayl tiradan baa lagu buuxinayaa wax jacayl ma jira dhalinyarada maxaad kula talin lahayd dhalinyarada waxaan kula talinayaa haddadan xisaano qofkiiba jeclayn runtu waa lama huraan atraaniyo kuma jecliye dee wakaasi see ula soco dee ruuxani inuu tunaasulaaba macquula inuu dee mid sii jecel isagu doontaa macquula marka runta yaanan laga maarmin baan leeyahay oo runtu mar walba ha ahaato runta in tiirka waxaa jira nimcoy dad sariir saaran oo jacayl dartii sariir u saaran oo maalin walba faleenbo dhakhtar la geynayo dadkaas isma oga maxaad is leedahay dawadooda kaliya weeye amaad kula talin lahayd waxaan kula talinayaa walaalo inkastoon ruuxan bilaadankaha u tegay unan soo noqonayn dee macnihii haddana inaad sakraad dee u noqotaa horta dantaa keenaysaa dadka jacayl saaran wallaahi dee waxaa la ilaahay idin caafiya caafimaadka baa bixiye ilaahay idin boo yadhayo kolley dee nabar jacayl qaba xanuunkiisa walaa leeyahay nimca waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijkeena waxaan galabta kaaga fadhinaa inaad hees jacayla noo qaado maadaama heeso hore kaa burqanayeen inaad nooga qacsiiso heesteen ma nagaa dalbana waayahay anigu ma heesaan jecelahay ma idin qaadaa noo qaad xalay mooye meelaan jiray mashquulkaaganaha caawana dhulku waa madow adooni muuqanayn aniguma masquubaye mahigaankii kalgacal ayaa igu maaxayo jacayl baan miranayaa mahadaalaba ribana qaxar iyo dhibaatiyo qalaalaasa badanaa qofka aan waraaqdiyo qaylada u dirayaa qalbigiisu adaga nimco waxaan kusii saqaynaa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena qofka ugu dambeeyaad salaamaysa xamdiyey horta waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan salaamayaa adiga iyo walaashii farduus inamada kaamirmaanaha marka ku xigta walaal waxaan salaamayaa asxaabteeda oo dhan marka ku xigtana waxaan salaamayaa adduunka waxaan ugu jeclaa hooyadii aabahay hodan daahirgaas waan salaamayaa iyo afkaab maxamiga inamo iyo hablaba asxaabta oo dhan wallaahi dee dadka oo dhan waan salaamay intaan ka tegin waxaan leeyahay qalbigeedii ku hayay kumaantigin nimcoy anaguna waan ku salaamaynaa daawadayaal intaa waxaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii aynu ku eegaynay dhanka jacaylka madashan aadka u quruxda badan waa kofeerka alikhwaat beauty salon hoyga quruxda mar walba iyo goob walba makeupkan ka muuqda dushayadana waxaa samaysay alikhwaat beauty salon barnaamijkan ma noqon doono barnaamij soo afgii doona ama maanta ku eeg wuxuu noqon doonaa barnaamijyaal taxana ah oo aad maalin walba iyo waqti walba aan la socodsiinayno barnaamijkan waxaan la socodsiinaysay anigoo xamdi cabdilaahi xamdi qaran intaynu barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.